السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan mawduucan kooban ku eegaynaa haddii Rabbi subxaanahu wa ta'aala idmo sida maalmahan aad maqlayseen baraha bulshadana haysatay waxa laga soo sheegayaa tacadiyo loo geysanayo culimada masaajid la xiray iyo kuwa la jajabiyay iyo kuwa la weeraro intaba ayaa waxa laga soo sheegayaa dawladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Jarar oo sida ku yaqaanaan dhagax buur haddaba waxa isweydiin mudan ciwaankeenu yahay yaa dhibta ka wada dhagax buur yaa masaajida xirxiray yaa culimada xirtaankooda ka dambeeya yaa isku dhacyada abuuraya intaan u guda galin faahfaahinteeda waxaan jeclaan lahaa inaad la dhegaysataan mid ka mid ah fidnawalayaasha wahabiyada mid ka mid ah oo deegaankaas ka wada fasahaadka azinaashinka iyo ammaan xumada intaba بريدجيست وحيد إن شاء الله. السلام ورحمة الله وبركاته. شعب قادرو من هذا قرني وي ما شاء الله ورواه عبد الرحمن ونك صاحبك هاي بلي ورنو وانكم سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونيا الله كبركة هذه كل علماء كلامه إلهي بركيه كل دعوة خير بان بتكودين ماشى إن شاء الله وحال فرصة دايرة عن هاي السنة هذا سنة كي حقاقة حال رأين لصاع أفشار نمانك سوفيا جبي قدر لقى قاعدة ورت مساعدك كويا اللي يحضر برتن كذا سوق عنا ليدا هنا يسوفيا ده هيستان وابا خلد وين ويسو وإن مدام حاج نور ولسه وكل دعوة مساعدك أنا قاعد لسه وليش أنا يصاح الله وإن نمانكاس إلا وإلا حول لقى قاعدة هذه حتى وحكة تقول إذا دقال إن لقى قاعدة ويا وأنت الرجل سر صانع إنك موادك حوك فرح كذا قاعدان هذه السلمية سورة جريسة صح أو مجلس العلاء أنت قراء مجلس العلاء أنت ورادي وحلاقة صوت قاستو إن محكمة الله صوم مريو إن صار قاعدة في عن مركا أي طريق لقى قاعدة كلام سعيد كهرتها لقى قاعدة إن شاء الله تعالى إذا يكون يسقطوا من هذا أو خلاص الشمنان تسكداي إن شاء الله تعالى سكمت باتين إذنكو تدهر التوحيد باتيه تدهر سناتهين تفرارق غير الإسكيل عليه إن شاء الله نمان كان سوفيا ونمان هذا خير درم الله يدين بركة يدين كنا حق بعد كسوغنتين حق يا بعض المرة بحق الرينية لكن الله الامتحان ما لقيا بحوجا ضدك حق وضع الله امتحان يا الامتحان كان إن شاء الله تعالى كصبر الله يدين بركة يو إلهي ومعنا سبحانه وتعالى الله يدين بركة يا بني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan filayaa inaad si fiican u dhageysateen uga boogateen codkaas wax badan ay idin kaga baxday cidda dhibta wada cidda weerarka iyo cidda lagu yahay weerarka ninka sidaas u hadlayay waa nin la garanayo magaciisa muuqiisa iyo maqalkiisa intaba ninka sidaas u hadlayay weerarka ah ee dagaalka ilaaminayay masaajidda xoog dadkan laga qaaday ee furaha laga muroojiyay imaamka ilaaminayay dawladdu ma xirin uma digin jooji ma oran isku dhacayo dagaalka wadid midna kuma oran bal taas bedelkeeda dawladdu waxay xirxirtay culimadii ninkaasi lahaa masaajidda xoogga looga qaado hala soo afjaro ayay xirxirtay sida ninka hadalkiisa aad ka dheehan kartaan wuxuu yiri muddada xukuumaddan jirto waxa weeye fursad ma haysanaa yiri inay fursad haystaan ayaad ka dareemaysaa maadaama culimadii nabadda ahaa masaajidda jooga weerarta lagu qaaday hadhowna ayagii la xiray waa wax qof walba dareemi kara weeye cidda dhibta wadana uu ogaan karo iyo cidda isla shaqaynaysa. alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. ahlu dacwa saytiin iska warrama xaaladiina ma fiicantihiin maa sha allah wadanku dacwo badan buu u baahan yahay waad aragteen barmarin waramada iyo burarka aan idin soo tuuray waa Cabdiqaadir oo gobolka Jarar kala soo hadlaya masaajidda gobolka Jarar rag waramada haystaa burka masaajidkaas maanta markay ahayd salaadii maqrib horteeda ayaa laga wareejiyay niman xira oo masjidka araarsa gacanta ku hayay weyn marka nimankii markaa masaajidka laga wareejiyay dawladda ka wareejisay waxaan ku wareejisay culimadii ahlu sunnaha saaka salaada subax waan aniga culimada ku jiraa nimid
magaalada Ararso Sheekh Rasheed iyo Sheekh Maxamed Abdullah Jaamac Sheekh Maxamed Dheere marka xaaladu meelaha samaraysa saashka hadda sunnada baa gacanta ku haya maqribkii cishaaga si fiican baa looga aadaamay loogu tukaday iyagana jeelka Ararsay bud laga siiyay qabaala lagu daabulay ciidana istaanbay baa la geliyay ciidankana xaaladu ka taasamarayaan kuwa dhagax buurra noocaas oo miiran oo 100 waran baa yaala iyaga 100 baa yaala oo idinkaas Suuriya walaalayaal waxaas weydiin mudan maxaa la weerarayaa culimada masaajidan Allah xirxiriya sidaad ogtihiinba culimada waxaa mar walba dagaal ka dhaxeeya dadka aaminsan afkaarta khawaarijnimada ee ku dhisan isdilka isqarxinta iyo istakfiirinta waxaad ogtihiin meelaha ay haystaan argaxisadan arxan laawayaasha ee shabaab inaysan u ogolayn culimada inay ku noolaadaan ama masaajid haystaan maxaa yeelay waxay aaminsan yihiin dadkani inaysan mudnayn in masjid loo dhiibo diinta islaamkana aysan si fiican u haysan sidaas ay aaminsan yihiin taasina ma ahan mid shabaabkaas kaliya gaar ku ah waa afkaar guud oo aaminsan yihiin dhammaan dadka aaminsan afkaartii maxaa cadowhaab oo dhan dadka aaminsan waxaad xasuutaan maruu ka hadlayay kitaabkiisa inuu lahaa dadka maanta nool buu yiri laa ilaaha illa allah muxammadur rasuulullah ku haya waxa ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga dhowbiyo tawxiidka oo rabbi subxaanahu wa ta'ala uga dhowbiyo abi jahli abi lahab marka afkaartaasi ma ahan shabaab kaliya mid gaar ku ah waa mid guud oo afkaarta dadka aaminsan oo dhan ay waxa weeye haystaan kuwa dhagax ka wada dhibtana waa isla dad afkaartaas aaminsan bal waxay la dhageysataan mid kale oo kamid ah fidna walayaashaas oo safar ku maray gobolkaas tuulooyinka hoos yimaada iyo degmooyinka hoos yimaada oo safarkaas uu ku maray dad ugu warbixinayo isla waxaan ku yiri dadkii isku afkaarta yihiin ayuu wuxuu ku tilmaamayaa dadkaas uu soo arkay meelaha ku soo arkay tuulooyinkaas uu tilmaamay tirada badan inay yihiin dad diinta garab marsan oo shirkiyaad ku dhex jira ayuu ku tilmaamayaa bal dhageysta asagana insha Allah biidnillaahi kariim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خيار وان السلام علماء يا طلبة العلم كوشرا دعاء قبل كشرر آذيات بعد السلام وانيك يوسف محمد فارح آذيات بان الله سبحانه وتعالى مهدي وشرنا ولي وحن كل حجر أن دعوذي إيو إصلاحي ربي سبحانه وتعالى إخلاص إنه قد إخواني في الله ومن باب أخبار بان كوضنا إله سبحانه وتعالى إخلاص إنه قد قولك يا عملك عليكم السلام ورحمة الله قول الوافي عنها هي الحمد لله بينها سد حبين بين نمك أفيانك وحن مري وحسوكين دنبيسي مركانو مريني دقمدا برقود ما أنتن كسوترني وحنو بريني حبينك دنبي مقالة ديك مقالة كنا قضو أن كلنا تولوين كفرها بدنا ولحيي aad garanaysaan birqod iyo dhagax buur baan soo wada maray wixii mataqaana qabale amaana ka leexan waan soo wada muxaadarad ay badan baan soo muxaadaraynay runtii waxaan ka soo leexanay garaw markaan soo leexanay waxaan soo maray wadadii bulaale tuulooyinka ka sheeyay ilaa bulaalna waan soo maray waan ka soo hadalay waan ka baxnay wadadii baan soo qaadnay wixii tuulaha u dhaxeeyay bulaale iyo kuna kadana waan soo maray habeenkii kuna gadan ahayn halkaasaan muxaadaraadkii iyo mataqaan tawciyada ka kale habeenkii iyo maalintiiba maalinta baan ka baxno tuulooyinkii baan sii maray waxaan tagnay farmadow ayaan habeenkii kala ahayn farmadow iyo intii u dhaxaysay tuulooyinkaas farmadowna waan ka soo baxnay dig baan xalay ahayn xalayna waan halkaasaan barnay maanta waan ka soo baxnay waxaan caawa joognaa awaare tuulooyin fara badan oo dhaxeeya awaariya digi halkaas iyo muxaadarooyinka soo mareen alxamdulillah rihla mubaarak ahay laakiin runtii wax ku farax galiyo iyo wax ka naxiyaba wadarki naxdinta u badan waxa weeyaan gobolka mulaaxadaadkan ku soo aragnay horeba saan ku sheegay dadku inta badan runtii khuraafaadka shirkiyaadka iyo bidca ku badan khaasatan Haarun Bariga marka la soo galo aad bay ugu badan tahay dadku dhibaatada uu qaba jahli
iyo dadku aad iyo aad uga muuqda oo ma taqaanay buucdi can diin oo ma taqaanaa de ayna la yaab ku lahayn cid ducaada iyo cid khayr ka dhaxfadiso oo tadxiisa ma aysan helin waxa inta badan la jooga dadkaas culimo waa nimanka suufiyada ah ma taqaanay de mu'taqadkooda iyo sunnahaba ka fogeynaysa runtii dhul laga walbahaaro ayaan soo aragnay xagga ka dacwiyan mu'taqadaadka suuqadka u luusan yahay baraha isweydiin mudan walaalayaal dadka loo akhrinayo tafsiirkii naxwihii fiqigii sarfigii iyo funuuntii kala duwaneedba muxuu yahay cilmiga ka maqan oo wali jaahiliin ay ku yihiin waxa laga yaabaa arma istiraahda kiimaadiga uu sheegaya maya ma ahan sida dadkaasi aaminsan yihiinba marnaba qofku hadduusan aaminsanayn afkaartii maxamed cabdi wahaab waa jaahil agtooda taasina ma ahanba wax la yaab leh hadda waxa weeye muasaskoodii horeba maxamed cabdi wahaab ayaa ku lahaa kalmad caan ah kitaabkiisa la yiraahdo durru saniya ma jirto cid aniga iga horeysay oo fahantay laa ilaaha illa allah sidaas waa qofkii sheegtay waliba ku sii darayo qofkii sheegtaa inuu yaqaanayna waa beenaale dadka wax isaga qasay ala kulli xaal ku soo waduubo wadaacina kulli hadda ma ahayn inaan aqoonta ku sameeyno baxthi iyo raadraac hasa ahaatee waxaan la galay tusaaleynta iyo dadka meesha dhigta ka wada sida ay dadkaasi u dhaqmayaan iyo dadka deegaanka inta inaan wax u muujino waxa ku soo foolay ayaana la gashay anigoon jeclayn hadalkiinaan ku dheeray walaalayaal qodobka saddexaad ee ku soo gunaanadiyo wuxuu yahay waxaan arkay dad badan oo ku haya armiyihiin dad kala xirxiray kuwii cabdiili la shaqayn jiray ama ay yihiin kuwa la xiray dadka tashayuca lagu tuhmayo culimada lama xirayo looma jeedo erayo noocaas dad badan oo cabirayaan arkay taasi waxa la oran karaa waa male oo kali ah laakiin xaqadu waxa weeye culimada la xirxiray ma ahan dad dawlad u shaqayn jiray waa mudarrisiin waa macallimiin qur'aan waxaan ku yiri shaqada gaarka ay waa kuwa xer ahaan jiray oo kitaabta akhrisan jiray oo shaqada gaarka ay saas ahayd ma aha dad lagu tuhmayo tashayuc waa xertii kutubta akhrisanaysay macallimiinta quraanka isugu jirtay weeye inta aan maqashin mid kamida dadka deegaanadaas ka wada dhibtay amaan darrada oo ku faanaya inay xirxireen culimadii dawladuna garab siisay waxaan jeclaan lahaa inaad la wadaago waxyaabaha la yaab kale ee muujinaya dulmiga iyo awoodda dawladda si khalad loo adeegsanayo inaysan wali dhammaan waxa weeye nidaamku wali inuu sidii yahay wax yar una isbedeleen waxa kamida nin macallina oo sheekha wuxuu kamid ahaa sida la sheegay runtii dadkii xilliga cabdili 2012 waagii nimankani ururkani soo xarooday waxa weeye la yiraahdo al-ittixaadka soo xaroon jireen ragin la xiray buu kamid ahaa xilligaas oo lagu soo eedeeyay rag xirtiisaba ku biiray oo alif lagu soo eedeeyay kamid ahaa wayadaas dhowr saaliqay islaamaantana wuu xiran yahay iyadoo magacii iyo waxaan ku loo bedelay ayuu xiran yahay maanta waxyaabaha aadka loola yaabo way marka ala kulli xaal yani kelmadaadkaas kooban iyo mawduucan kooban waxaan jeclaa walaalo badan inaan waxa weeye mawduuca ka faaloonayaan arkay maalmahan inaan wax u tusaaleeyo oo tusaayay ahayd dadka ay qusaysana laga yaabo marka qaarkood inay gaarto si fiican bay uga socotaa insha Allah masaajidka isaga masjidna waa masaajidkii weynaa ee Sheekh Cabdi Qani uu gacanta ku hayo kaasoo isagu hedawaagii malaha waa kala mooyee isagu rag buu u baahan yahay oo halkaas weeye xoog dawladuna dawlad xoogeysatay maaha annagana wali iskuma kaana sii deynin masjid dhakhtarka dushiisa ku yaala oo isbitaal ku yaala waxa la yiraahdaa masjid Sheekh Ali Suufi la yiraahdaa masaajidkaas kalabaadna waa dabaq waa masjid cusub anagu gacantaba ku dhigin oo laakiin dhismihiisa wadaad Xaaji Nuur Hiire looreeyay uu dhisayay wiilal abtuu yahay ay soo dhisayeen isaguna mas'uul uu ka ahaa iyo haayo isna gacanta ay ku dhigeen walina gacanta muuna dib ugu soo noqonin labada masaajid oo waliba masjidka dabaquna suuqa badhtankiisa ku yaalo
haddaad magaalada Dhagaxbuur aragteen meel la odhan jiray suuqa Caanleyda oo haanta biyuhuna ku taala ayuu ku yaalaa. waa masaajid dabaq ah. labada masaajid oo labaduba aad iyo aad halbowle u yihiin way u fiicanaayeen ayaa labadiiba gacanta ku hayaan weli kamana aan furfurin dawladuna weli meena xoogaysanin marka xaaladda masaajid waa iska marka insha Allah biidin Allah karim waa intaas ku eegaya mawduuceeni. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.